Asalaamu calaykum asxaabta qaaliga soo dhawaada. Caawa waxaanu ka hadlaynaa sida loo maalgashado cryptocurrency. Cryptocurrency hore waynu kasoo sharaxnay introductionkiisii iyo waxa uu yahay iyo waxa uu ku saabsan yahay. Caawan waxaan jeclahay inaan isdul taagno sida loo maalgashado cryptocurrency. Si aad u maalgashatid amba aad access ugu heshid suuqaas, waxaad u baahan tahay in aad exchange-yada laga iibsado laguna kala iibsado cryptocurrency-ga aad isticmaashid oo aad la soo degtid applicationskooda. Exchange-yadaas waxaa ugu horeeya dalkeena marka loo eegayo iyo regionka oo u furan oo la isticmaali karaa. Aniguna aan isticmaalay waa application-ka amba shirkadda Binance la yiraahdo Binance. Application-kaas markaad la soo degtid waxaad ka samaysan doontaa username iyo account-kaagaasi maadaama uu yahay application-ka aad ku kaydsan doontid amba aad wax ku kala iibsan doontid, waa inaad security-giisa hubisaa. Number one, email-ka aad ku isticmaalaysid iyo password-ka aad ku samaysanaysidba waa inay ahaadaan kuwo aad xasuusan tahay oo aan kaa lumayn. Sidoo kale email-kaas waa inaanu noqon email aad meel walba ku isticmaashid oo inta lagu soo dhex maro dadka hackerska ahi aanay asset-kaaga iyo lacagtaada ula bixin. Waxaad kaloo samaynaysaa markaad account-ka samaysatid inaad wax la yiraahdo two-factor authentication aad ku samaysatid. Waad wada garanaysaan oo mar walba aad gelaysid marka laga yimaado password-ka inaad ku xidhatid in email lagu soo diro, code lagugu soo diro amba text code lagugu soo diro si loo hubiyo inuu yahay qofkii account-kan lahaa inaad tahay. Intaa markaad samaysid waxaa kuu soo bixi doona oo aad geli doontaa account-kaasi. Waxaa ku dhex geyn doonaa cryptocurrency-gii platform-kii, waxaana kuu soo bixi doonaa assets fara badan ama cryptooyin fara badan oo liiskii cryptada qiimahoodii iyo mid walba. Application-ka markaad gashid isku day inaad fahantid application-kaas oo aad in badan aad fahantid intaanad waxba samayn amba waxba iibsan. Markaad application fahantid oo aad isagana si gooni ah u baadhid oo research u samaysid meelaha YouTube-ka iyo tutorial-ka sida details-ka u sharaxaya, waxaad familiar aad la noqon doontaa sida loo iibsado iyo sida wax loo iibiyo. Qodobka kuu soo xigaya waxa weeye in aad lacag dhigatid ayaa kuu soo baxaysa. Lacagtan waxaad u dhigan kartaa kaararka bangiyada Mastercard iyo Visa card-ba wuu support garayaa. Si hawl yar baad deposit u odhan doontaa oo aad u deposit garaysan doontaa. Markaad deposit tiraahdid oo aad lacagtii usoo wareejisid account-kaaga, waxa aad markaa diyaar u tahay inaad iibsan kartid currency-gii aad doontid. Halkaa marka aad joogto currency-yadu way fara badan yihiin. Tobanka ugu waaweyn ayaa inta ugu badan. Tobanka ugu horeeya liiska xagga market cap-ka. Market cap waxaa la yiraahdaa value-ga uu amba lacagta dhex wareegaysa currency-ga markaas ayaa market cap-ka ayaa la yiraahdaa. Sida u kala market cap badan yihiin tobanka ugu sarreeya waa for long term investment bay dadku u sameeyaan. Wax qofku doonayo intuu iminka iibsado laga yaabo inuu sanad, 6 bilood, 2 sano, 3 sano amba mustaqbalkaba doonayo inuu ku kaydsado hantidiisa ayna u korodho siiba Bitcoin oo ah ka ugu weyn. Kuwa kale ee ka yaryari waxa la yiraahdaa meme coins ama altcoins wixii ka soo hara waxa lagu yiraahdo Bitcoin-ka. Iyagana dadku markay aad u bartaan ayay ku trade gareeyaan oo iyagu aqoon dheeraada iyo research dheeraada ay u baahan yihiin iyo inaad hubisid inaan lacag kaaga lumin maadaama fluctuation-kooduna badan yahay. Qaar badan oo scam amba beenina ay ku jiraan oo dadka lacagaha lagaga shubto. Mar walba waxaan kuu soo jeedinayaa inaad adigu research-kaaga samaysatid, go'aanaad adigu leedahay aad ku gaadhid wixii aad iibsanaysid iyo wixii kaleba. Anigu baraarujin iyo awareness bay iga tahay. Financial advice kuma siinayo oo kuma lihi kaa iibso waxbaad ku helaysaa. Kaana iibso adigu soo gal
qof kulle qof aqoon leh baa tahay. Research kaaga samee, wixii ku anfacana ka isticmaal insha Allah. Guul baan idin rajeynaya.